wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdullaahi Abakar oo uu helinayo gudoomiyaha banka Somaliland oo muddooyinkii u dambeeyay safar shaqo ku marayay gobolada bariga Somaliland ayaa maanta warbaahinta gobolka Togdheer waxa ay wax ka weydiiyeen halka uu marayo heshiiskii koron caare iyo waliba xaalada gobolka sanaag. isagoo wasiirku hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay bariishkii labaad ee magaalada Burco in muddo ah xidhnaa kaasi oo ay waxyeello soo gaarsiiyeen dadkii dhawaan soo maray tago weyn ee magaalada Burco. gobolka sanaag waxaan u joogay arin horumar baan u joogay laakiin waxa xil saaran hawsha nabadgelyada iyo wada hadalka wasaaradda shaqada ku lahaa laakiin waxa la sheegayaa wax dhib weyn ma shaqo ma jirin isku dhawaar jiray laakiin xaaladda waxa qacad ku hay odayaasha dhaqanka ee beesha caari uu ka soo jeedo oo shalay u baxay waxaan amar lagu bixiyay oo madaxweynuhu amar ku bixiyay inaan hawsha lagu dhameystiro si nabadgelyo ah marka hawshaasi waa arin socda buu ahaa waxaan rajaynayaa insha Allah haddii la ka dhigo inay hawshaasi si nabadgelyo ah ay ku soo dhamaan doonto arinka biriishka Burco runtii waa xaqiiq waxyeello waxa gaarsiiyay roobabkii waaweynaa waxa la sameeyay daraasadii iyo sidii wax looga qaban lahaa imika hawshaasi waxaan rajaynayaa wiigan soo socda in insha Allah ay u iman doonaan injineeradii imika daraasadii waa la sameeyay iyo sidii wax looga qaban lahaa waxaana la sii deynayay kharashka madaxweynuhu ugu ogolaaday cidii markaa hawsha wax ka qaban lahayd iyo shaqaale dhaqso u imanayaan waxaan rajaynayaa insha Allah haddii la ka dhigo muddo dhow in hawshaas si dhaqso nooga dhamaan doonto hawsha waxa qacad ay baan ku odayaasha dhaqanka shalayna la joogay oo u tagay darraana u tagay markii waa hawsha qaqadu dhacday marka hawl kasta wax ku dhamaanaysa caare wuxuu ka tirsan yahay waa nin Somaliland inaguna waxaanu ku soo caanamaalnay 30 sanadoodba wax ka soo in hor yimaado inaan si nabadgelyo lagu dhameystiro xukuumadda go'aankaygu waxa weeyaan hawshaas si inay ku dhamaato si nabadgelyo sababtoo nin kasto dhinaciisa iyo dhinaceena ka dhimanayaaba waa dadkeena weeyaan marka xilkuna wuxuu saaran yahay oo mas'uuliyiinta iyo dadka la doortay ilaahayna kala xisaabtamaya marka dawladdu waxay ku dadaalaysaa 100% hawshaas inay ku dhamaato si nabadgelyo bismillaahir rahmaanir rahiim inta lacagta ka jawaabin laba su'aalo wasiirku ka jawaabin baan yara xoojinayaa mid waa arankii jabada caare aad weydiis wasiirka anagu xalay waxaan ka nimay ergaabo saacada la hadlayo maanta ah wada hadal baa socda odayaashii beesha uu ka soo jeedo caare iyo secretary-kiisa wada fadhiya xalaytina way sarkeen maanta ballameen marka maanta bal wixii ka soo baxa ayaynu sugi doonaa waan ku go'aan qaadayna ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.